السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإبراهيم عثمان عبد النور وقال كان أدي لهي نوافجيو وحنكو شرح دونا نوتبوك LM أما نوتبوك Language Model. نوتبوك LM أو أبليكيشن أما وسيستم عن سلي هاي وحكا فايديسن كرتا جودهان أنو كلا ريبين بهذا وحبرشة هاي تاعي أرضي معلمين قلن ليف يعيد كستو قدنيسا إنay تعلينتا ككرسطو مريقها أونلاين كأما هيجن كأ wuxuu ku jiraa toolska aan sida joogtada u isticmaalo waxaan jeclaystay inaan muuqaal aan ku faahfaahinayo qeybaha ugu muhiimsan ee notebook LM aan idiin soo gudbiyo sidoo kale waxaan muuqaalka ku soo baahinayaa YouTube channelkayga ENG Ibrosman haddii aad halkaan ugu xidhan tahayna salaan kaliya laba ayaan ku salaamayaa waxaan rabaa marka intaynan gelin qaabka uu shaqeeyo notebook LM iyo sida loogu diyaariyo artificial intelligence-giisa casharada ama waxii la xiriira imtixaamaadka kale ama toolska waxbarashada inaynu bal eegno ilaa laba qaab oo kamid ah qaababka loo soo galo ama loo access gareeyo dabcan computer hadaad ka isticmaalisid hadaad mobile ama aaladaha kale ka isticmaalisid waxa khasab inaad Google account ama Gmail kaaga uu kaaga furan yahay browser kaaga kadib waxaan soo galay Google markaan soo galno ama Google-ha sida aad u taqaanaba halkaas sare wuxuu leeyahay Google Apps ama sagaalka dhibcood ee midigta sare taala markaad ku dhufatid wuxuu sameeyaa marka in xagga hoose aad u socotid hoos markaan aado scroll down baan sameeyaa halkan waxa inoo yaala isagoo calaamada icon ka leh notebook LM horta halkan marka ku dhufatid waad soo gali kartaa sidoo kale browserkaaga xagga sare qaybta addresska ama URL-ka waxaad ku qoraysaa notebook LM sida hadda halkan idinka muuqato hadan kan idinka qaado waxaad ku qoraysaa notebook.lm.google.com marka halkaas aan aad u qoraysaa enter baad leedahay labada habba waa lagu soo galaa marka hadda aan waxaan isticmaalayaa hal qaab daaqadaas aan markii soo galinaa marka sagaalka dhibcood ee Google-aan soo galay kadib saasan ku soo galay notebook LM waxay hoos baan u digayaa hadda dabcan aniga horaan u isticmaalay oo kuwan waxay kamid yihiin casharaan hore ugu sameeyay adiga hadday tahay markii koowaad isticmaashid waxa ku soo baxaya create new notebook laakiin dabcan uu saddexdan notebook ee hore aniga ayaa hadda ka hor ku samaystay oo isla maanta weeyaan notebook scan kadib create new notebook ayaan oranayaa waxaan ku gujin doonaa ama aan ku dhufan doonaa create new notebook marka waxa lagu sameyn doonaa notebook-gaaga ugu horeeyay daaqadan waynu soo arki doonaa oo dib baynu ka arkaynaa marka koowaad waa iska xidhaynaa saddexda daaqadood ee ugu weyn waa saddexdan hadda inoo muuqda mid waxa la yiraahdaa sources mid waxa la yiraahdaa chat mid waxa la yiraahdaa studio midba gaar baynu eegaynaa halka sarada daayagtan ay ku qoran tahay untitled notebook waxa weeyaan notebook-gaagi inuu bilaa magac yahay marka halka waa taabanaysaa waad iska masaxaysaa marka hadba wixii aad rabtay ayaynu saasan oranaynaa AI prompting okay saasan iska oranaya enter baan siinaya marka hadda notebook-geeni waxaynu siinay magacaasan siiyay saddexda daaqadood baan marka rabaa inaynu faahfaahino muuqaalkan waxaan isku dayaa inaanan aadin oo dheeraan qaybta sources-ku waa meeshii la soo gelinayay xogta ay rabtid in AI-gu ka caawiyo ama ila xogeedadii salahan macalinku markuu jaamacad ku dhigayo ama meel kale oo ardayda la wadaaga sources ay kamid yihiin PDF oo kale waxay noqon karaan PowerPoint slides waxay noqon karaan muuqaal YouTube ku siiyo document caadi ah oo Word iyo wixii lamid ah marka halka waxaad soo gelinaysaa buugii ama faylkii aad tixraacisay AI-ga aad u dhiibaysay wuxuu kaaga caawinayayna isaga aad u sheegaysaa marka halkan waa la soo gelinayaa oo kaliya laakiin qaybta generate gareynayso koodka ama waxa uu ku qabanayo qaybtan daaqada xigta la yiraahdo chat oo qaybtan hoose ayaad ku qoraysaa laakiin hadda tusaale ahaan waxaad sawirtaa inagoo book AI-ga rabna inuu book-ga inoo khulaaseeyo su'aalo iyo jawaabo inooga diyaariyo si aynu imtixaan ugu diyaar garowno marka waxaan leenahay add sources ama sources markaynu ku dhufano daaqadan inoo soo furaya oo tan idinku lahaa way inoo iman doontaa okay xog intee ah ama imise qaybood oo xog ah ayuu ka caawin karaa notebook LM in aad la kaashato wuxuu ka caawin karaa inaad isku soo upload gareyso faylasha haday yihiin PowerPoint document inaad marka hore ka soo rarto computer-kaaga aad isaga dhex keento waad awoodaa sidoo kale wuxuu wax ka caawin karaa muuqaal si toos aad YouTube-ka uga soo qaadatay oo linkigiisa ayuu inta aad keensid aad oran kartaa muuqaalkana linkigiisa ku siiyay sida weeyaan marka muuqaalka waa kaba soo qaad koor 3 saac soconayo muuqaal baa lagu dira inta 3 saacadood daawan lahayd muuqaalka isaga oranaysaa ii soo summarize garee summary iga samee su'aalo jawaab iga diyaari وانا mid faa'iida drive-kana waa faylal Google Drive-ka yaala inaad dhex keento AI-ga oo marka la kaashato copied text ama copied text-na waa qoraal aan meel ka soo qaadatay oo blank ah oo qoraal aan
wax qurxina lahayn oo toos aad meel uga soo koobiyeysa inaad intaad ku baasti karayso dhahdid qoraalkaas sidaa waxa iga caawi. marka inaga waxaan dhahayaa upload file baan leeyahay. file marka book aan soo dejiyay halka inoo yaala aan idinkana rabo inaan idin ku tijaabiyo. bookga waxa la yiraahdaa Python tutorial, waa book 155 page ah. runtii aad ayuu u badan yahay bookgani. marka waxaan rabaa bookga inaynu la kaashano, aynu dhahno noo soo koob. open baan leeyahay markaad bookga aan doorto. open markaan ku dhufto halkan bidixda qaybtii sourceska ee xogaha aad rabtay inaad la kaashatid ee ay loogu talagalay soo gelaya. xogaa waxa yar loading buu sameynayaa, shaqo yar buu wadayaa. marka inaga waxa laga rabaa markuu xaggan bookgii soo galo inaynu halkan su'aal ka weydiino, aynu dhahno bookgan aan ku dhiibay sidaa ku samee, waxa igu samee. marka hadda bookga wax yar waad sugaysaa. hadhow markuu dhamayo waxaan ku garanaynaa calaamad wuxuu soo saaraya tick ah ama calaamadan saxda. okay, marka internetkaaga awoodiisana waa ku xidhan tahay faylka pageska ama uu ka kooban yahay book iyadana way ku xidhan tahay. laga yaabo bookgaas hadduu dhowr boqol oo page yahay inuu xoogaa wareego. marka hadda bookkii waynu dhiibnay, su-aashana sii qoranaa bookga maxaan rabnaa inuu nooga sameeyo. waxaan leenahay bookgan waxaa ku samaysaa summarize this book baan leenahay noo soo koob. hadda dabcan waad arkaysaan faylkii tick buu hadda is saaray. okay, bookgiina waa kan, magacaasuna siiyey waana magaceenu xagga sare ku qoranay, laakiin weli bookgeeni shaqadii laga qabanayo umaynaan sheegin notebook. summarize this book baan leeyahay. sidoo kalena waxaan leeyahay and prepare questions and answers. waxaana iga diyaarinaysaa su'aalo iyo jawaabo. marka waxaan rabaa bookgan 155 page gabiisa inuu xoogaa yar inta ugu muhiimsan oo nuxurka uu iga soo koobo, kadibna uu su'aalo iyo jawaabo iga diyaariyo. marka calaamadaas aan ku dhufanayaa uu baaraya, marka xogtii buu generate gareynayaa. marka waxaa lanaga doonayaa bookgeenii badnaa inuu yareeyo oo koobo, khulaaseeyo, kadibna kaaga diyaariyo wax la yiraahdo su'aalo iyo jawaabo. hadhow marka imtixaan haddaa gelisid bookkii sidii dadka lagu yaqaanay ardayda ah intii waxsi ku geli lahaa kana la kaashanaysaa notebook LM waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay aan ku amaanayo ayuu kamid yahay. kadib su'aalo iyo jawaabo kaaga diyaarinaya wixiiba waaba aleha. hadda waa kan wuxuu u bixiyay summary of the Python, waana bookgan geliyay. kadib bookkii ayuu sheegayaa, kadib basicskii Python-ta ayuu sheegaya, data typeskiisii, noocyadii xogta, qaabkan uu soo khulaasaynaya. marka ciwaanada ugu muhiimsan uu mid walba in yar ku soo koobo oo ku fahansiiyo ayuu halka hadda wuxuu ka galay questions and answers, su'aalihii iyo jawaabihii. su'aashu horeysiinaya, answerta eedaas uu soo gaabinaya, jawaabtu gelinaya. marka tan waa taa saas uu soo wadaya. marka saas uu wadaya, su'aasha xigtuu tagaya, jawaabteeda ku xigayso eedaasa. marka sidaa markuu u wado adiga hadda waa kan bookkii dhamaa intaas uu ka soo ururiyay. waxaad samayn kartaa hoos markan u yara dego halkan qoraalka oo ka koobiyan kartaa. copy inta dhahdid waxa la aadi kartaa meel alaala meesha doontid. halkan waa inaad like saartid dhahdid response-ka ay siisay ama jawaabta aad siisay waa ku qancay. tan waa tii dislike-ta YouTube oo kale ku arki jirnay. marka tan qoraalkii markaad ku qancado oo su'aalihii jawaabihii iyo khulaasadii bookga lagu siiyay ama faylkii halkan aad keentay, save to note baa leedahay. markaan ku dhufto save to note xaggan ayaa laga generate gareynayaa midigta. waa kan oo hadda faylkeeni waa ka. marka maxaynu u baahanahay faylka inaynu maadaama la inoo soo koobay su'aalo iyo jawaabo la inooga diyaariyay inaynu helno isagoo document ama PDF ah. marka maxaan sameynaynaa? saddexdan dhibcood ayaan ku dhufanayaa moorta ay ku qoran tahay. kadib waxaan leenahay export to docs oo wuxuu inoogu export gareynayaa oo inoo geynayaa Google Documents-ka adoo iska Word dhex yaala Google-ka. markaan ku dhufto export to Google Docs waa kan hadda baalkan iyo la summary gareeyay, summary-giisa waa kan. kadib su'aalihii iyo jawaabihiin halka dambe ayaa laga geliyay. intaad book 155 akhri lahayd gabigiisa daqiiqadaas uu ugu soo khulaasaynaya. qofkii garanaya sida loo isticmaalo Google Documents isagoo wuxuu ku sameyn karaa inuu faylkan uu farta wax ka sii bedelo, kalaadhadeeda iyo ciwaanada iyo waxa sii qurxisto. waa haddii uu hore u isticmaalay waa iska Word-ka wax ma dhaamo. marka hadda faylkeeni isagoo Google Documents aynu haysanaa. dabcan wuxuu automatically kugu save gareysmaya Gmail-kaaga oo Google Drive-kaaga. hadhow hadda gashid waa ka helaysaa. waxaan rabaa inaan PDF u save gareysto aan la dego. waxaan tagayaa xaggan file. kadib file markaan tago waxaan dhahayaa download. download-kana waxaan kasii gelayaa qaybahan soo furmay kan ay ku qoran tahay PDF document. PDF markaan sidaa ugu dhufto waad arkaysaan halkan waxaa ka soo degay faylkii waana kan u sarreeya. haddaan hadda click siiyo gabigiisiiba waa kan. laba page waa la isugu soo koobay ilaa su'aalihiisii ilaa jawaabihiisii. okay, marka waa kan khulaasayntii bookkii oo dhan intaas uu ka soo koobay macal su'aalihiisii macal jawaabihiisii waana nuxur dhammaystiran, waqti badanna kaaga lumi maayo. okay, taa waynu garanay oo faylka aynu xaggan ku soo tuurnay ayuu wuxuu nooga sameeyay
wax la yiraahdo summary su'aalaha jawaabana uu inooga diyaariyay waxyaabaha aadka ugu jecelahay waxa kamid ah aan rabo inaan idinkan soo qaybta studio-ga inagoo joogna halkaas sare waxa inoogu yaala wax la yiraahdo audio-ga muxuu yahay audio-ga dad aan ku dhufto wuxuu samaynayaa laba qof oo AI ah oo broadcast ahaan buugaaga u falanqeynaya intii lagu summarize gareeyay labada qof ee AI-ga waxay falanqeynayaan broadcast caadi laga dhex sameynaya artificial intelligence buugii ama faylkii aasisay ee lagu khulaaseeyay marka haddaad iskaga dhufatid horo ka sameynaya laakiin hadda falaadha ay ku dhufato waxbaad ka sii bedeli kartaa salaam hadda falaadha hadaan ku dhufto wuxuu leeyahay buugu broadcast wuxuu noqonayaa mid deep dive ah oo hoos loo sii gelayo gunta ma mid si brief loo dul maraya critique ba oo waxa review ku sameynaya xogtan dad khabiir ah marka feedback fiican bay ku siinayaan oo ka caawinayo waa inay xoogaa si yar oo maartay khibrad loo kooban ay u dul maraan debate waxa weeyaan inay labada qof ee AI-ga ee dadka iska dhigaya macmalka ah ay ka doodaan mawaadiicda ilaahdaan taa ka waran aragtida aanu ma qabo saasan qaba ma fahant marka adiga waxa laga doonayaa inaad dhahdo deep dive ka sanaan inta badan isticmaala kadib xalkan length-ka oo ah short iyo default iyo long waxa weeye broadcast-iga hadda dhahdo short broadcast kooban buu noqonayaa oo gaaban default hadda dhahdo isaga waa qaabka uu garto oo isaga qaab uu ka dhigaya laakiin long hadda dhahdid uu dheeraanaya marka adigu waa inuu yaraado ama dhexdhexaad iyo short marka hadda iskuma badinayo daqiiqadiisa waan yareenayaa maadaama waqti uu qaato waxaan dhahayaa broadcast-igu ha yaraado laakiin xasuuso xaggan waxaan kasoo doortay deep dive waa in si qoto dheer programka looga hadlo iyadoo la soo koobayo halkan wixii aad ku dari kartid ayaad oranaysaa isheeg ku dar salaanada waxaan oranayaa focus data types of Python marka hadhow marka iyagoo ka hadlaya broadcast-igoodii ayaa haddana waxay diiradda saari doonaan data types-kooda marka waxaan oranaynaa generate waqtina uu qaadanaya hadda waa kan xaggan hoose ayuu ka bilaabay waa faylkeeni aynu la degnay PDF-kiisa kana waa broadcast-geeni hadhow waynu tijaabinaynaa waqti buu qaadanayaa programka qaybiska kale eegayna waxaan rabnaa hadhow inaynu aragno faylkeeni buuggeeni qoraalka xaggan inoo yaalay oo podcast laga dhex sameeyay laba qof ay daadihinayaan okay qaybta aan isleeyahay iyadana aad muuqaalka ku dirtid waxa weeyaan qaybta la yiraahdo halkan ay noogu jirta studio-ga mind map ama khariidad maskaxeed waa maxay khariidad maskaxeedda aan ku dhufto oo diyaarinaya isagana isla bartii ayuu ka generate gareynaya waa iyaduna farsamo ardayga ka caawinaysa ama qofkan isticmaalaya xogtan in uusan ilaawin xogtan loona kala siiyo mudnaan oo prioritize wax la yiraahdo lagu sameeyo oo wixii podcast ahaan looga bedelay ama PDF-kii la siiyay bayado sawir ah oo visual ah loo sameynaya qaabkay u kala farcamaan ciwaanada buugan siday u kala hooseeyaan say u kala farcamaan bal hadda aan ku dhufto waa kan hadda waa la dhameeyay hadda podcast-iga uun baa socda aan ku dhufano okay daaqadan hadda ka soo furmayo waa mid yar kooban oo yar tahay halka expand baa ku qoran hadda ku dhufto oo balaaran tan yadii ku soo celiyana way soo koobanaysaa marka si aad u balaariyo expand baan leeyahay kadib haddaan hadda blastan ku dhufto waa zoom in minustan haddaan ku dhuftana waa zoom out okay saasaan ugu dhufanayaa kadib adoo click tahaya mouse-kaaga saa odhanaysa haddaad dabcan touch wadatidna kaba wacan oo fartaada ku wadan kartaa okay laamu ka dhigay bal waxaa sawirata adigu geed leh dhowr laamood laan walbana ay leedahay caleemo ay sii leedahay hadda laanta ugu horeysa wataa micnihii ciwaankii uu ka mudnaa uu ka horreeyey ayaa laga sarreysiiyey okay hadda kan marka laga soo gudbo qodobadiisa halkaasaan ka gelayaa falaadhaayar markaan saa ugu dhufto kan wixii hoos minayay baa xaggaa la hoosgeliyay casharadii baa la hoosgeliyay halkaa laanta markaan ku dhuftana iyadana casharadaasa hoos imanaya hadda kan waa arkaysaa casharka in lasii hoos gala isna waa ku dhufanaysaa labadaasa ka soo baxay command line argument iyo script vs interactive tanna markaan sii galo interactive marka primary prompt iyo secondary prompt baa soo baxay dabcan falaarahan waxay ka caawinayaan in cutub adu ka soo qaado cutubkan casharadaas sii hoos gala casharadaas hadday sii kala baxaanna in iyadana lagu sii dhufto badhan baa halkan jira iyagoo dhan hal mar kuu soo wada saaraya kan weeyaan haddaan kaa ku dhufto imika iyagoo dhan hadda waa kan walow ay yara adag tahay marka in la soo dhaweeyay unbay noqonaysaa in la arko marka saasaa odhan kartaa haddaan iyadii ku celiyana wuu isku wada celinayaa sideedii bilowgii buu ka bilaabaya marka waxaan rabaa bilowgeedii marka sidan ahayd inaan sawir ka qaato waa dejinaysaa calaamadda download-ka ayaad click siinaysaa markuu dego aan ku dhufto hadda sawirkan aan furo suu noqdo aynu isla eegno sidoo noqdo marka waa ciwaanadii guud intii aadan kala shaandhayn aadan sii kala furfurin haddaan xidho markaan kala furan aan u fiirso badhankan kala furiyay markaan sidaa ugu dhufto uu soo wada baxo baan sawir ku dhufan hadda mar labaadkiina isagoo wada dhan casharadii oo dhan ay sii kala baxbaxeen baan sawirtay hadda dabcan uu fog yahay laakiin haddaan soo dhaweyno
aan double click dhaho ama aad control iyo plus taabatid si clear aad u arkaysaa oo marka waxaad ku shuban kartaa xitaa mobilkaaga oo ku shuban kartaa dad mobilka isticmaalaysa dabcan waa marka uu soo degayaa ama photos uu soo gelayaa ama gallery-ga marba mobilka isticmaalaysa haduu Android ama iPhone iyo iPad yahay marka dabcan tan hadda maxay ka caawinaysaa inaad kala fahanto casharadu say u kala horeeyaan say u si kala baxaan iyo meelaha aad mar walba focus ka saaraysid marka tan waa khariidad maskaxeedii aynu sheegaynay oo marka wuxuu naga caawiyay aan halkan close ka dhahno in aynu kala ogaano ciwaanadan marka la soo khulaaseeyay say casharadu u kala muhiimsan yihiin u kala horeeyaan iyo marba qaybta aad ka dhamaanaysid marka taasi iyadana waa khariidad maskaxeed dabcan hadda waxa intii aan casharka sharaxayay khariidada maskaxda inoo dhamaaday podcastiga marka si aynu u aragno waxaan ku sameeynaa calaamada belayda andaro marka Today's deep dive takes us into the foundational data types of Python. Yeah, and we're using the official Python 3.7.0 to Okay, hadda waan iska browse garaynay oo waxaad arkaysaan hadda markii hore hadda xasuusataan aynu sii gelinay qaybtan halka aynu sii dhex gelinay waxaan ka codsaday markaynu halka hoos u qorinay in uu focus ka saaro data typeska marka xagga doodooda waxaad ka yara dareemaysaa marka wax falanqeynayaan inay data typeska soo celinayaan maadaama aanu ka codsaday inuu ii saaro diiradda ama focus ka saaro data typeska marka buugan lagu summary-ga lagu sameeyay meelaha aad leedahay fahmadeedu waxay u baahan tahay inaad si gundheer ama aad si fiican u fahanto xagga gudaha si galaysa qaybta podcast waxa oranaysa qaybta xoogaysa dabcan hadda u baahato inaad la degtid podcast-gan saddexda dhibcood ee moorta ayaad taabanaysaa kadibna waxaad dhahaysaa download baad dhahaysaa marka waxa kugu soo degayay isagoo dhageysiya waa kan imika downloadkiisii halkan ayuu ka socdaa marka wuu kugu soo degayaa okay waka hadda aniga waa ii soo degay marka waa hadaan ku dhuftana soo baxaya waan dhageysan karaa marka okay aan iska xidho marka hadda waxaynu aragnay saddex daaqadood oo ugu waaweyn saddexda daaqadood waxay kala hayeen daaqada sourceska aynu ku sheegnay inay tahay daaqadii xogta laga soo gelinayay barnaamijka oo marba buugga aad u baahan tahay aad inta dhahdid file ahaan usoo upload garanaysay kadib fileka aad soo gelisay halkan qaybta chatka ayaad waxaad ku qoraysaa wixii laga rabay iyo khulaasay su'aalo iga dhig haddaad leedahay aad aysan u soo koobin qoraalka raacinaysaa adoon aad u soo koobayn haddana si faahfaahsan oo kooban u sharax markaad ka gudubtid uu su'aalo iyo jawaabana kaaga diyaariyo filekiina lagu khulaaseeyo waxaad ka samayn kartaa khariidadii mind mapka sidoo kale barkaasina waa ka samaysan kartaa marka muuqaalo kale aan isku dayay inaan si deeply aan gudaha u sii galo waxaan raacinayaa hal cashar oo ah hadda tan aynu aragnay waxa weeye in lagu soo upload gareeyo file PDF ama documentia imisa file baad ku upload gareyn kartaa wuxuu ku ogolaanayaa inaad upload ku samayso 300 oo sources oo kala duwan tusaale hadda hal book baan geliyay kala soo qado markii ugu horreysay isticmaasho halka file baad ee ayga tiri iga saacid 299 file oo kale baad haysataa laguma kala saarayo adaa og PDF haddaad geliso PowerPoint aad geliso haddana qoraal caadi aad ku baahasti garayso haddana aad ku upload garayso YouTube link isagoo ku tirinaya 300 oo markaad wax soo upload garayso sourceska halkan soo geliso oo marba wax ka weydiiso 300 markay ka dhamaato ma isticmaali kartid waxaan qorsan inaad qaybta u gudubtid isheeg ama account kale sameeysid asi kale waxa lisid marka 300 waad ku xisaabtami doontaa insha Allah laakiin waa badan tahay dadkeenu waxay isticmaalaan Gmail kala duwan saddexdaas markay ku dhamaato ama qaybta lacagta u gudub ama waxaad isticmaali kartaa inaad account kale oo Gmail ku gasho hadda YouTube kan rabaa 10 course dhamaystirana inaan linkiga soo qaato khulaaseyn la iga sameeyo kadib su'aalo iyo jawaabo la iga diyaariyo tan wuxuu soconayaa 4 saacadood buu soconayaa tan 4 saacadood muuqaalka shido anoon daarin waxaan ku sameynayaa linkigiisa xagga sare ayaan intaan tago waxaan ku sameynayaa copy markaan tago waxaynu ku noqonaynaa notebook-geeni kadib add source baan leenahay xog baynu ku gelinaynaa maxaynu isticmaalnaa hadda file ma upload garanayo YouTube linki baan wataa soo ma YouTube linkigan dooranaya halkaasaan ku baasti garaynaya kadib insert ayaan leeyahay insert markaan iraado halkan waxaa la soo gelinayaa muuqaalkii kooraska 4 saacadood ahaa hadda waa ka TikTok saaray marka kan Python tibu ahaa isaga TikTok waan ka qaaday waa isaga waxba kama weydiinayo hadda ka waan ka faaruqnay laakiin waxaan shaygan doonayaa waa maxay waa kooraska YouTube-kan ka soo qaatay in uu iga caawiyo marka hadda ka uma baahni TikTok saasaan uga qaaday haddaan labadooduba TikTok saar macnaheedu waxa weeyaan labadooduba waxbaan hal mar ka wada weydiinayaa marka maadaama kala aysan isku seenay kala laba yihiin waan ka saarayaa TikTok okay maxaan u weydiinayaa marka waxaan leeyahay summarize baan leeyahay this course and prepare Q&A kadib waxaan leeyahay enter ama calaamadaas aan ku dhufanaya waxaan ku yiri soo koob
kadib markuu summary iga sameeyana su'aalo iyo jawaabo iga samee kuna talagal oo muuqaalkan muuqaal aan soo dejiyay maaha waa muuqaal aan si direct ah uga soo qaaday linkigiisa platformka YouTube-ka marka taas waxay ka caawinaysaa dad badan oo waxa jira arday oo aad uga wahsada markay arkaan course ay u baahan yihiin oo haddana muuqaal dhowr saacadood soconaya laakiin anu hadda waxaan ku upload gareeyay hadda fiiri halkan markuu hoos u degaya qaybtan u socdo ma arkaysaa maxaa ka dareemaysaa inuu marba xog badan ay hoos sii jirto way soo badanaysaa ma arkaysaa cursor-kii marka hadda muuqaal dhan oo 4 saacadood ah oo full course PHP ka sheekeynaya benidino khulaase intii 4 saac daawan lahayd hal marba lagaaga sameeyay documentigan hoos baan u degaynaa marka waa arkaysaa variableski control flowgi arrays and functionski formki database-yadii wixii oo dhan ka qaybta markuu soo khulaaseeyay course-kii xagana su'aalo iyo jawaabo what's the difference between the get and post maxaa farqiga u dhaxeeya jawaabteedina waa taa oo eedaas uu ku jawaabaya marka barnaamijku marka sidoo yahay sida kii hore aynu tijaabinay saybeen uga dhigaynay document ama PDF waxaynu ku dhufanaynay save to note kadib wuxuu inoo imanayay hadda qaybta kana hadda meesha haysta wixii la yiraahdo shay waa podcast-iga aan shiday waan xidhayaa podcast-iga waa kan PHP ga halkan uu yimi file-kiisii waa kan file-ka markaynu sameeyno more baan odhanaynay kadib more markaynu dhahno waxaynu dhahaynay maxay export to docs waxa la inoo geenayay marka daaqad waxa la inoo furayay Google document waana kan PHP ga file-ka dhammaystiran haddii aad soo qurqurxin kartid aad si hagaajin kartidna si galgal file baad tagaysaa si aan PDF uga dhigano kadib waxaynu leenahay download kadibna PDF file-kaas marka waxa ku download garaysmaya oo PDF aad isticmaali kartid biinillahi tacaala marka isaga haddii aan u baahno inaynu sidii kii hore podcast ka dhiganana qaybta awliyaha haddaad ku dhufatay si direct yaba u bilaabaya oo haddaad saa ugu dhufto hoos wuxuu markiiba ka generate garanayaa inuu podcast ka diyaariyo laakiin haddaad rabtid podcast aad wax ka sii bedeshid falaadaas ku sii dhufanaysaa kadib podcast-gaaga ma si brief rabtaa mise deep dive oo aad loo hoosta loo dhaadhaco si fiican loo faaqido waxa rabtaa short inuu noqdo long inuu noqdo podcast-gaaga ugu dheeraado meelaha rabtid in xoog la saaran halkaas baad ugu qoraysaa oo marba dee qofku input-ka uu gelinayo muhiimadu waa in istaraatiijiyadii ama systemka qaabka loo isticmaalay aad baratid laga yaabo qaabkan aanu xogta u gelinay qaab ka fiican in aad u gelinaysid laakiin adiga waxa laga rabaa in aad sidii loogu talagalay u isticmaasho ha fikirkaaga aad ku salayso marka wixii baahidaada aad ku salayso ama hadda gudbi uun bay iga tahay laakiin adigu halkan hoose waxa loogu talagalay inaad geliso podcast-iga lagu sameyn doono maadaama hadda long ban hadda doortay darteed podcast-igaas in meelaha gaar la faaqido halkan ku qor luqadda isticmaal waxaad oranaysaa halkaas si fiican uga hadal waxaan rabaa podcast-iga luqadda ku hadlaya inuu jilicsanaado marba wixii aad ku qorayso marka hadda kan close ban iska dhahaynaa magacaygu waa Ibrahim Cusmaan Cabdinuur muuqaalkan waxaan si kooban uga hadlayay inagoo AI isticmaalayna notebook LM bal faa'iidadiisa iyo qaabka uu shaqeeyo way jiraan qaybo badan oo aynaan gelin ay ka mid yihiin reportska iyo quizzes-ka iyo waxa la yiraahdo flash card-ka laakiin inta ugu muhiimsan waxa weeye podcast-igaas document-yadan in la soo upload gareeyo iyo in loo bedelo mind map cid kale oo inta badan isticmaasha ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa muuqaalada xiga isagoo ka duwan oo inta kale aan ka hadlayo inaan idinla wadaago fadlan haddaad ku cusub tahay YouTube channel-kayga waxaan ka codsanayaa oo mar labaad ka codsanayaa inaad subscribe dhahdo si aad nagu dhiirigelisid inaan muuqaalo kale soo diyaarino haddii aad Facebook page ka daawanaysidna muuqaalka sii share garee waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh